annagoo ah madaxda siyaasadeed iyo saraakiisha dawladda ee qaabilsan amniga waddanka inaan ka xaajoonno sidii loola tacaali lahaa amni xumada ba'an ee ay wadaan ururka al-shabaab oo maalmahan dambe weeraro gaadma ah ku qaadayay baabuurta u kala gooshaysa deegaanada kala duwan ee gobolka waxaan halkan isu soo qaadnay waxyaabo badan oo loo baahan yahay in la sameeyo marka ugu horeysa annaga haddaan nahay madaxda siyaasiyiinta iyo madaxda dawladda ee qaabilsan amniga inaan wada shaqayno oo bulshadana la shaqayno si loo joojin lahaa amni xumada ay wadaan xubnaha ka tirsan al-shabaab ee u soo gudbay deegaankeena gobolka waqooyi bari dawladda waxaa kaloon ka codsanaynaa dhalinyarta tirada badan ee ku aafaysan qaybaha kala duwan ee gobolka ee la diifaysan shaqala'aanta in sida ugu dhaqsaha badan loo shaqaalaysiiyo isla markaana saraakiisha dawladda ee ku howlan ka hortagga arrimaha amni xumada in la siiyo kharashaadka ay u baahan yihiin gaadiidka ay u baahan yihiin iyo waxyaabaha kale ay u baahan yihiin isla markaana Kenya Police Reservists kuwa loo yaqaana ee deegaanka laga soo xulay ee loo soo xulay aqoonta ay u leeyihiin dalka aqoonta ay u leeyihiin luqadda ummadda ku dhaqan gobolkan iyo guud ahaanba deegaanada kale ee ay aafaysay amni xumada in iyagana gunooyinkooda la siiyo isla markaana qalabka ay u baahan yihiin la siiyo si ay difaaca ugu horeeya ee ummadda ka difaacaya ururkan ay mataqaanaa noqdaan si wanaagsanna hawshooda u qabsadaan